Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ku soo qaadanaa odhahyadii iyo halkudhigyadii Cali Ciise Bokovic. Xabsigu waxa uu ku barayaa aqoon aad u xanuun kulul. Marka qof la xidho, waxa dhiba goobta oo aad ugu yaraata iyo xilliga ku bata. Midnimadii Islaamka waxa kala dhantaalay dad ku gaabsaday dhanka diiniga oo kaliya, ilaawayna midnimadii kale dunida ee diimaha kale ku dhaafay. Islaamku alla koodka iyo lixaadku weligiiba ma fahmayo hindisaha ku duudan dabeecaddu way farmasin mid weyn. Walaaxawga ama materialisigu waxay ay sutaa u muujisaa waxay wadaagaan xawayaanku iyo aadamuhu. Diintuna waxay sugtaa muujisaa waxay xawayaanku iyo aadamuhu ku kala duwan yihiin. Waayihii hore waxaa lisu dili jiray madax diimeed, waayahana waxaa lisu dilaa madax aragtiyeed. Aragtidaasuna malaayiin dada ayay galaafsadaan. Sida ii muuqata, fakarka Islaamku wuxuu ku dhex dhibaatoonaya fakarada bariga galbeedba, sida dhulka Islaamkuba bariga galbeedkaba ugu dhexeeyo. Xorriyadda cidi kuma siinaysa, waa la qaataa. Haddii ay waayaan nololeed dadka kala fogeynayaan, masaajidka wuu kulmiya, waana dugsiga maalinlaha dadka isu soo dhaweynaya. Aqoonta waxaa xambaara qof kaliya, ilbaxnimadana waxaa xambaara bulsho dhan. Taasaan kusoo gabagabeynaa odhahyadii Cali Ciise Bokovic, geesigii Muslimka ah. Wassalaamu calaykum.